halkan waa wadada dheer ee xiriirisay isgoyska Bakaaraha ilaa iyo isgoyska Dabka. roob saacadihii la soo dhaafay ka da'ay magaalada caasimadda Muqdisho ayaana saameyn ku yeeshay wadadan iyadoo mootooyin dhowr ah oo isticmaalaya wadadan uu daadka la tagay. xaaladda wadadan ma ahan mid sahlan waxaana ka jirta dhibaato xooggan. qaar ka mid ah shacabka adeegsada wadadan oo isugu jira gaadiidleyda iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaynu la hadalnay annagoo ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobkii saacadihii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho. mootada waxay biyaha ii soo qaaday isgooska Bakaaro ya rakaab laba qof saarnaa labada qof labada dhinac kala boodeen dawladdu waxaan fariin u dirayaa mootadeeda inay ii gadaan teeda kaleete laamigan inay naga sameeyaan sida mootoley u nahay laami walbo dadkii oo laamigan oo dabka ilaa iyo Bakaaraha isticmaalay oo daadad ku soo rogmaday oo bajaajleyda qaarkooda mootooyinkooda ay ka baaba'een sidaad arkaan taamba mootooyin qaar oo baaba'ay iyo dad binaadan oo meesha igana laga qaado maxay to daadadku ay qaadeen iyo hanti oo laga soo qaaday isgooska Bakaaraha waxaas dhan waxa iyo laamiga oo dabka ku yaal oo burburay asigana dhanka dabka ilaa iyo Bakaaraha isku xirkiisa oo burburay. waxaan u sheegaynaa marka dawladda federaalka Soomaaliya sida hadda ay u jeedo xaaladdan ku sugan wadda aan mariyo mootar rikaab baan ahay waala ahay waxaana u sababa nimcadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u nasiiyay marka Ilaahay waa uga shukriyeynaa marka koobaad marka labaad dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay naga hagaajiso jidkan aan ku shaqaysan karlaana waana wadada isku xiriirisay isgoyska Bakaaraha Dabka khaasatan waliba waa area Dhagaxtuur iyo meesha loo yaqaano xerada militariga ee Jacfar sida awadeed waxaana dawladda federaalka Soomaaliya aan ku codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay wax nooga qabato meeshan kaliyana ma ahan magaalada Muqdisho way balaaran tahay annaga gaadiid wadana meelo badan baanu marnaa ceel qalow baa kamida waxa weeyaan meelo badan vision baa kamida iskool booliisiya kamida dhulkaas oo dhan waxa weeyaan wadooyinkooda way qariban yihiin waxaanu ku codsanaynaa dawladda federaalka isku gooshkeena uu xumaaday waagii hore dhibaato waxaanu ku qabnay wadadaan way xiran tahay kala wareeg haddeerna waxa dhibaato ku qabnaa nimcada Ilaahayna siiyay aan maartay laamida naga baabiinayso marka dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa mudane xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha dhammaan waxaan ku codsanaynaa inay naga hagaajiyaan wadooyinka waana codsi xaq aan u leenahay waxaana shacabka Soomaaliyeed biyahan halka wadada lagu soo arooriyay wiilal baa jidadkii biyuhu u qaybsamay lahaayeen aratuur ka sameeyay si ay biyihii bataatixi lahaa meelo badan ku bataatixi lahaa wadadii bay ku soo celiyeen gubi bay noqotay wadadii wadadan oo Bakaaraha aada oo iskool Dhagaxtuur iyo way go'day baabuur baa ku dhex jirta hadda waxaana sabab u ah dad aan dimuqraadiyadda beledka aan aqoonin baa jidadkii aratuur ku sameeyay shalay roobkii oo da'ay aad iyo aad u weynaa ilaa iyo dhimasho laga sheego iyo xoolihii oo dhamaadeen maantana tii ka dhacday waa la wada arkaa kulii sadar muuqdo su'aal ka dhan dawladda waxaan baaq u dir lahaa gobolka Banaadir waa gobolka ugu muuqi iyo muunada wanaagsan oo Soomaaliya waana hooyada Soomaaliya markii loo gobolka Banaadir waxaan dawladda ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan xaaladahan ay sameeyaan wado ay maraan biyaha si oo ummadda masaakiinta ay u helaan farxad iyo xasilooni waayo had dad badan dhibaataysan oo maanta guryahooda ka soo faaruqeen oo guryo kala raadsanayaan marka dawladda Soomaaliya waxa ka codsanayaa inay wax qabtaan. maxamed daahir dulmidiid 5 Somali TV Muqdisho. ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha